Assalaamu calaykum kusoo dhawaada kanaalkeena Garane. Fiidiyogeena maanta waxa uu ku saabsanaan doonaa Kaafuur Ali Lakshidi. Fadlan haddaad ku cusub tahay kanaalka subscribe saar. Wuxuu Masar soo galay isagoo addoon ah si loogu iibiyo suuqa addoommada. Haddaba intaan la keenin suuqaas ayaa isaga iyo addoon kale oo loo waday suuqa addoommada is weydiiyeen waxa ay ku yididiiloonayaan iyaga oo weliba ku sugan dulligii addoonnimada. Waxa uu yidhi addoonkii kale ee la socday Kaafuur, waxaan noqonayaa cunto kariye si aan u cuno wax kasta oo aan rabo iyo mar kasta oo aan rabo. Dabcan addoommada qaar markaa cuntada dhibaata ka haysatay Kaafuur oo ah ka aynu u soconno ayaa yidhi waxaan ku yididiiloonayaa inaan noqdo boqor halkan ka taliya. Way israaceen maalmuhu iyagoo ku soconaya amarka Alle, xaqiijinayana rajadii Kaafuur. Waxa uu noqday ugu dambeyn boqorkii Masar iyo kuweedii ugu awoodda badnaa, talinayayna muddo 21 sano ah. Si fiican looma sugin taariikhda dhalashadiisa, gaar ahaan taariikhda hijriga, laakiin waxa lagu qiyaasaa inuu dhashay sanadii 905 dhintayna 968 miilaadiga. Wuxuu ahaa mid nasiib badan marka loo eego muuqaalkiisa. Waxa uu mudanihiisu ama kii lahaa ka iibiyey Maxamuud bin Wahab bin Cabbaas al-Kaatib, kaas oo ah kii noloshiisa wax badan ka bedelay, barayna qoraalka iyo akhriska. Sayidkiisuna oo ah markan Maxamuud bin Wahab bin Cabbaas al-Kaatib waxa uu xiriir la lahaa boqorkii ka talinayay dowladda Ikhshiidiya xilligaas ee Maxamed bin Tuquj. Kadib markuu arkay maskax badnaantiisa ayuu soo iibsaday, tarbiyadeyna isagoona halkaa ku bartay aqoontii boqortooyada, isagoona markii dambe wax bari jiray carruurtii boqorka. Kadib waa la xoreeyay isagoona laga dhigay hogaamiyayaashii waaweynaa, sababtoo ah waxa uu ku sifaysnaa maamul wanaag, dhabar adayg iyo maskax badnaan u raacday. Taariikhyahanada qaar waxay tilmaamaan inuu u noqonayo fadligii iyo waxqabadkii dowladdii al-Ikhshiidiya, iyadoo ahayd boqortooyo ay ku furnaayeen furumo dagaal oo badan, sida dowladdii Hamdaani ee uu ka talinayay Sayfudowla al-Hamdaani, markii dambena uu jabiyay gaadhayna caasimadoodii. Waxa kale oo uu dagaal kala dhexeeyay dowladdii Faatimiyiinta oo ahay Shiico doonaysay inay qabsato Masar, kuwaasna waxa uu ku noqday laf dhuun gashay. Waxaana la sheegaa in markastoo ay doonaan inay qabsadaan Masar inay odhan jireen Masar ma qabsan karno inta uu joogo Xajarul Aswadkan, yacni dhagaxan madow, oo ay uga jeedaan Kaafuur Ali Lakshidi. Sanadii 946 miilaadiga waxa uu noqday hogaamiyaha dhabta ah ee dowladda Ikhshiidiya, wuxuuna isku ballaariyay Shaam iyo Xijaaz. Inkastoo ay taariikhyahanadu ku tilmaamaan inuu ahaa boqor caadil ah oo dhexdhexaad ah, haddana magaciisu wuxuu la xidhiidhaa ama ku caanbaxay maansooyin cay ahayd oo ka dhan ahaa Almutanabbi oo ahaa abwaankii ugu caansanaa Carabta waagaas. Sidaas oo ay tahay, sharaftiisu si weyn umay dhaawicin oo shacabka Masar oo dhan ayaa ku kalsoonaa, waxaana looga soo ducayn jiray masaajidda Masar, Shaam iyo Xijaaz. Ugu dambeyn wuxuu dhintay sanadii 968 miilaadiga, kadib markii uu ku dhex noolaa Masar muddo badan isagoona u adeegayay dowladdii Ikhshiidiya muddo 20 sano ka badan. Wuxuu galay khilaafyo uu la galay dowladihii jaarka la ahaa, isagoo isku dayaya inuu caddeeyo qiimihiisa, awooddiisa, kartidiisa, hogaamintiisa ciidanka iyo hogaamintiisa Masar. Waxa kale oo uu ka shaqeeyay in la kordhiyo oo la ballaariyo hantida dowladda. Waxa uu sugay in qof walba addoonsiga iyo midabka jidhku aysan sabab u ahayn in laga horjoogsado horumarka noloshiisa. Taas beddelkeeda, waxa uu ahaa tusaale iyo astaan u sugan dadkii madoobaa ee xilligaas joogay. Marka loo eego qiimihiisa iyo deganaanshihiisa iyo hal-adeegnimadiisii, waxay ahayd noloshiisu mid sharaf ku dhex leh Masaarida ilaa uu ku dhex dhintay Qaahira oo meydkiisa loo wareejiyay magaalada Qudus. Intaas ayaynu ku eekaynaynaa mawduuceena maanta.